hogaamiyaha xisbiga talada Somaliland haye kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay war ku soo baxay warbaahinta maxalliga ah kaas oo ku saleysnaa inuu madaxweyne Siilaanyi u gudbiyay codsi ah gudoomiyaha kulmiye iyo xubno kaleba inuu ka tanaasulayo tartanka doorashooyinka 2015 waxaana Muuse Biixi Cabdi ku dooday in aanay madaxweyne Siilaanyi ka wada hadlin arintaasi shir aan joogay oo ogahay oo madaxweynuhu ila arinta waan ka tanaasulay ama go'aanka uu ka sheegay haba yaraatee ma jiro warkaas ma jira ma meel aan joogo arinta lagu soo qaadana ma jirto sideedana ma arintaas ma jirto warkaas waa walan jiri taasi deeyaa yaqaan calamin qaybka wax uu dareeyo warahay su'aal baad weydiiso arintaas ma jirtaa shirkaas ma jirin goobta ma joogin odaguna ma oran gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxa uu ka hadlay doorashooyinka oo xisbiyada mucaaradka Somaliland walaa xoogan ka qabaan inuu xilligeedii ku dhici weydo iyo aragtida xisbiga kulmiye uu ka qabo xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka Somaliland horta doorashada dib u dhacda cid iyo waqtiga la qabanaya cid buu sharcigu siiyay cidaas ma ka hadli karta waa komishanka doorashooyinka iyaga sharcigu siiyay inay cayimaan maalinta doorashada la qabanayo hadday soo hormarayso hadday dib u dhacayso komishanka awoodaan anagu faragelin weyn laakiin xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxaanu cadeynaynaa wixii hawla ahaa ee ku xidhnaa iyaga ee doorashada ku saabsanaa inaan dhammaynay hadday sharcigi tahay waa dhammaynay komishanka waa la magacaabay dhaqaalihii waa la sameeyey marka xagga doorashada anaga wax nagaga laabanay ma jiro waqtigana komishanka ale xubnaha sharciga qaybiisa loo soo magacaabo horta saddex madaxweynaha soo magacaabo inta u badan labana wax keenay qolada la yiraahdo gurtida labana wax keenay mucaaradka waa sida ahaan jirtay dad muddo kale rag iyo dumar leh oo badankooda wada garanayo oo mas'uuliina oo hawsha qaban kara weyn waan ku kalsoon Mukhtar Ismaaciil Ali Somsa TV Hargeysa.